Akhrinta buugaagtu waxa ay faa'iido u leedahay caafimaadka jirka iyo kan maskaxda. Faa'iidooyinkaasi oo inta noloshaada ka dhiman jiraya. Halkani waxaan kugu soo gudbinaynaa xogo caafimaad oo ku saabsan sida wax akhrisku isbeddel wanaagsan ugu leeyahay maskaxda iyo jirkaba. Wax akhrintu waxa ay xoojisaa awoodda maskaxda. Cilmi baarisyo isa soo taraya ayaa tilmaamaya in wax akhrintu wax ka beddesho maskaxda aadanaha iyada oo la adeegsanayo mashiinka MRI scanka. Ayay cilmi baarayaashu xaqiijiyeen in akhrintu ay saamayso qaybo maskaxda ka mid ah oo isku xiran, fariina isu gudbiya. Markasta oo wax akhrintaadu xoogaysato, waxaa horumara hanaanka isku xirnaanta maskaxda oo noqota mid heerkeedu sarreeyo. Cilmi baaris la sameeyay 2013 ayay khubaradu isticmaaleen iskaanka functional MRI scanka si loo cabbiro saamaynta wax akhrintu ku leedahay maskaxda muddo 9 maalmood ah, waxaana la arkay markasta oo wax akhrintu badato in qayb hor leh oo maskaxda ka mid ah ay bilaabayaan inay shaqeeyaan. Iskaanadu waxa ay muujiyeen in inta qofku wax akhrinayo iyo maalmaha ka dambeeya ay isku xirnaanta maskaxda siyaado, khaasatan qaybta loo yaqaan somatosensory cortex oo qaabilsan ka jawaabidda dareenka, taabashada, dhaqdhaqaaqa iyo xanuunka. Wax akhrintu waxa ay hoos u dhigtaa stresska. 2009 koox cilmi baarayaal ah ayaa tijaabiyay saamaynta ciyaaraha loo yaqaan yoogada iyo wax akhrintu ku leeyihiin heerka stresska ee ardayda dalbanaya jaamacadaha Mareykanka. Cilmi baaristaasi waxaa lagu ogaaday in 30 daqiiqo oo uu qofku wax akhriyahay ay hoos u dhigayso cadaadiska dhiigga, garaaca wadnaha iyo heerka walwalka. Wax akhrintu waxa ay sidoo kaleeto baabi'isaa hanjabka, sida uu qoray filosofarka reer Britain Sir Roger Scruton. Dadka uu asiibo hanjabku waxa ay dareemaan in ay ka go'doonsan yihiin bulshada inteeda kale. Dareenkaasina waxaa yareyn kara akhrinta buugaagta. United Kingdom's National Health Service ayaa samaysay mashruuc la yiraahdo Reading Well oo ah mashruuc khubarada caafimaadku qorayaan buugaag si la mida daawooyinka, kuwaasi oo loogu talagalay inay hoos u dhigaan heerka hanjabka. Ugu dambeynna, wax akhrintu waxa ay yareysaa hilmaanka uu gabowgu keeno, iyada oo la arkay in dadka wax akhrintoodu badan tahay ay hoos u dhacdo khatarta ay ugu jiraan maskax tirtiranka iyo hilmaanka. Muuqaalkeennina maanta intaasi ayuu ku eg yahay. Haddii aad wax ka faa'iiday, la wadaag asxaabtaada sida iyagana uga faa'iidaan. Mahadsanid.